nuxurka sheekadu waxa weeyaan khaladaadka iyo dilalka dhacay waa u jeednaa arrintaasna waxa dhabarka u ridanaya laamaha amniga iyo qaybta gudoomiyaha madaxa loo wada gelin lahaa amniga magaalada lagu la xisaabtami lahaa waxaan aaminsanahay in wax badan laga qaban lahaa marka waxba isku dhex jira wixii dawladda hoose maamusha mise dawladda dhexe maamusha dadka qaarkood dawladda hoose waxay u yaqaanaanba inay qashinka ka shaqeeyaan nadaafadda kaliya magaalada Garowe waxaan ognahay tan iyo Ramadaan kadib dad badan baa lagu dilay oo aan ognahay dad isugu jira dad xoogsataa ah oo dhalinyaro ah habeen dhow saas oo dad baa lagu dilay maadaama tiin dadkii konsulka magaalada Garowe loo dhaariyay arrintaas ay waragtaan arrinta waxaan u aragnaa guddi amni baa jira amniga magaalada haddii si fuul ah lagu wareejin lahaa degmada waxaan qabaa waxbay ka qaban lahayd boqolkiiba boqol marka cilada jirta waxa weeye degmadii gacbo gacan uguma jiraan taliye qayb iyo haddii alla ka wareey heer dawladda dhexe ah baa barnaamijka haya marka yani halkaas waxyaalaha aanu doonayno inay saxano bay ka mid tahay marka nuxurka sheekadu waxa weeyaan khaladaadka iyo dilalka dhacay waa u jeednaa arrintaasna waxa dhabarka u ridanaya laamaha amniga iyo qaybta iyada ayaa hawshaasi loo hortaagan marka in lagu wareejiyo amniga cidda xaq u leh wali yani qodobadan hadda la sameeyo oo maamul dadajinta sida waxbarashada amniga caafimaadka arrimaha hoose oo dhan degmo kasta in iyada loo dhiibo ayaa dawladda hoose ku haysa dawladda dhexe baa kuwa nagu haysata marka xoogaa nidaam waxa isleeyahay xaq yani dastuuri ah way khaladaadka dhacaya marka wili wixii waa qoran yihiin laakiin ilaa xad waa hatta saa ogtahay hadda waa loo fadhiyaa qaabkii ama doorashadii wixii aan ku soo baxnay laftigiisa hadda fadhi baa laga hayaa oo editing baa lagu wada marka khaladaadka ugu weyn waxaan u tiirinaynaa anagu inay tahay dawladda dhexe aysan ahayn dawladda hoose dawladda hoose waxaan ognahay iyada mashquul badan maxay ka qaban kartaa haddii amniga lagu soo wareejiyo wax badan ma ka qaban karnaa waxa kamid ah inaanu taliyayaasha ciidanka annagu ay hoos yimaadaan waxa kamid ah haddii la korayo kontaroolada iyo baraha meesha laga soo galayo dadkan khamriga keenaya walow dawladda hoose ay miisaaniyad siiso haddana miisaaniyadeedu dhigeedii ma ay haysato saa darteed haddii gudoomiyaha madaxa loo wada gelin lahaa amniga magaalada lagu la xisaabtami lahaa waxaan aaminsanahay in wax badan laga qaban lahaa marka waxba isku dhex jira wixii dawladda hoose maamusha mise dawladda dhexe maamusha dadka qaarkood dawladda hoose waxay u yaqaanaanba inay qashinka ka shaqeeyaan nadaafadda kaliya marka wali waxbaan saxaynaa shaasixta hadda tiin xildhibaanada ku yimid codka shacabka maxaad culays u saari weydeen ilaa hadda gudoomiyuhu waxa haystaa golo deegaan oo ku yimid niyo waxyaalaha culayska nagu haysta waxa kamid ah kalfadhiyaanu leenahay kalfadhiga baa wax lagu falanqeeyaa waqtigiisu waa dhow hadda kan soo socdo kale waxyaalaha miiska noo saaran ba kamid tahay in si fuul ah maxay dawladda hoose maamusha maxay dawladda dhexe maamusha maxaanu kala leenahay halaga hadda garoonka kubadda lagu ciyaaro kale dawladda dhexe nagu sheeganaysa waxaan rabaa inay maamusho dawladda hoose saasoo kale marka insha Allah taala waxaan khaladaadka wuxuu ka jiraa inuu dheer yahay muddada yani la iswaraysto iyo shaqa socota shaqaduna tii hore bay meesha kula sii daarteen ma jira kala fadhiga guddiga joogtada soo arinta kama hadli karo guddiga yani joogtada ay waxyaalaha uu qabanayo waxyaalaha yar shorti kala waxyaalaha la soo darsan gudoomiyaha iyo guddiga fulinta waxyaalaha yar oo raba in laga booto laakiin waxyaalaha masiiriga ee waaweyn dhammaan 3 deegaan ee hoosta degmada Garowe waa in golaha weyn ay ka wada niqaashaan oo ay wada ansixiyaan taas weeyaan arrinta marka ugu dambeyn sida u saameysay magaalada Garowe dhacdooyinkan dambe ee dilalka ah wallahi Garowe wax ku gaar ma leh dhacdooyinkan Garowe ka dhacaan gaalkacyo ka dhacaan boose ka dhacaan meel walba ka dhacaan dilku meel kasta waa ka jira laakiin waa khalad weyn khaladahan tooska loo saaro waa khalad dhacay waanu cambaareynaa dadkina insha Allah taala waxaanu leenahay tacsi aanu halka u mareynaa dhibaatada laga gaarsiiyay hawlahoodina waa lagu jiraa ka hor dhicmeena